السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصوماليات iyo ummadda reer Jabuuti waan idin salaamay meel aad joogtaan iyo xaalad aad ku sugan tihiinba. Sida ballanteenu ahayd waxaan rabaa inaan idinla wadaago mowduuc aad iyo aad muhiim noogu ah qof kastoo naga mid oo bini aadana siiba gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Jabuuti inuu macno u sameeyo macnaha uu leeyahay marka la fiiriyo. Waxaan ka hadlaynaa haddii xagga Ilaahay ay ka ahaato inaan ishelo waxaan nahay qof ahaan waxa aad tahay inaad ishesho waxaa la yidhaahaa personal reality iyo personal identity, ahaanshahaaga gaarka ah iyo xaqiiqadaada gaarka ah inaad hesho aad bay muhiim u tahay. Marka adduunku waxa uu kala qaybsan yahay wax la wada leeyahay iyo wax la kala leeyahay. Marka labadaa marka aan ka dhaqaaqno social reality ama social identity waxa ay ka soo fircantaa yani personal reality iyo personal identity. Yani ahaanshaha qofka, identityga qofka. Anu kama hadlayo inaad identity waddan ka soo jeedo ama mabaadi ka soo jeedo ka hadli maayo. Waxaan ka hadlayaa shakhsiyan qof ahaan qofka aad tahay personally waxaad leedahay identity adiga kuu gaara oona cid kale kula wadaagin baa jirta. qof walba oo bini aadana wuxuu leeyahay identity isaga u gaara oona qof kale oo bini aadani uusan la wadaagin. Marka maadaama uu wax gaara leeyahay socialkiina wax la wada leeyahay baa jira. Marka si aad waxa aad leedahay marka aad meel ku ogaato ayaad qayb ka ahaanaysaa socialkii, bulshadii qayb aad ka ahaanaysaa oo waxaa bulshadu ay wada leedahay ay dhici kartaa, suuro gali kartaa inaad qaybtaadii hesho maadaama kolka horeba aad is ogaatay cidda aad tahay, qofka aad tahay, shakhsiyan qofka aad tahay iyo xaqiiqada aad ku nooshahay. saasaa loo yidhaahaa marka personal identity iyo personal reality muhiimadda ay noo leedahay ayaa mid runtii aanan ku baraarugsanayn macnaha ay noo samaynayso nolol ahaan ka qof ahaan iyo ka roolka aan bulshaweynta dhexdeeda aan ku yeelan karno marka loo fiiriyo. Haddaba saa darteed ayaan rabaa mowduucan inaan idinla wadaago qof kasta oo yani bini aadan oo arrintan ay khusayso siiba ummadda reer Jabuuti iyo ummadda Soomaaliyeed. Waaya waxaa la yidhaahaa qaab dhismeedka xaqiiqada ah ee bulshadu waa fikirka aasaasiga ee culunta bulshada. qaab dhismeedka xaqiiqada ay runta ah ee bulshadu waxa weeye waa fikirka aasaasiga ah ee culunta bulshada. The construction of reality is a role is a core concept of sociology. يعني waa halbowlaha udubdhaxaadka culunta bulshada qaab dhismeedka saxda ah kan been abuurka ka hadli maayo ee la falsifikeynaya ka hadli maayo. Waxaan ka hadlayaa wadada aasaasiga ee nature-ka ama dabiiciga ee dadku uu leeyahay marka la soo maro bulshada qaabka loo dhiso qaab dhismeedka xaqiiqada ku salaysani waxa weeye waa fikirka aasaasiga ee culunta bulshada. maxay ka dhigan tahay haddaba? waa hadba dadku yani siday wax u abuuraan dhaqankooda qaab dhaqameedkooda wax u abuurayaan iyagoo adeegsanaya ficiladooda iyo isdhexgalkooda xaqiiqadooda ama xaqiiqada la wadaagayo taasoo la soo maray iyo taasoo yani taariikh la soo maraya iyo tan maanta joogta iyadoo tahay wax dhaba oo macno qof u samaynaya. haddaba sidaas waxaa la yidhaahaa marka objectively factual and subjectively meaningful. xaqiiqa ahaan waxa objective yani objectiga waxa la yidhahaa ama objectiveka waxa la yidhahaa wax la taaban karo objective ahaan si xaqiiqa loo taaban karo oo run ah, iyo subjectively meaningful fikir ahaan macno kuu samaynayo oo kuu cuntamayo oo iib galayo oo qof walba qancinaya ayaa la yidhaahaa objectively factual and subjectively meaningful. waaye dunida bulshadu haddaba waa wax maaha wax cidi samayso ama ay bixiso maaha, waxyi ma aha, dabiici ma aha, waa wax bulshadu ay samayso dabadeedna ay isku gudbiso. waxaan ka hadlaynaa waa dhaqankii baan ka hadlaynaa ka imanaya bulshada ka imanaya social
environmentka ka imanaya, personal realityga ka imanaya, iyo personal identitygu halka uu ku samaysmayo een rabno nuxurka hadalkeenu inuu noqdo wey. waayo haddaba arrintaa iyada marka waxaa bulshadu samaysay dhaqanka noqon kara wax kasta oo aanan ka baran karin garaadkeenna iyo dareenkeenna waa waxaan ka barano dad kale. sidaas dadku waxay isku baraano dhaqanka iyo isdhexgalka bulshada ee social interactionka la dhaho la iskugu gudbinayo waxa yani bulshadu ay isku gudbisay ee dhaqanka ah yani qaabka loo baran karo wey. haddaba 95% waxaan ognahay muwaadinka i dhegaysanayo 95% waxaan ognahay waxaan aqbalay wax naloo sheegay ayaan aqbalay 95% waxaan aqbalay wax naloo sheegay 5% baan anagu leenahay laakiin 95% waxa weeye wax dadka noo sheegeen ayaa nolosheena maareeyo oo raadka weyn ku leh. haddaba qaab dhismeedka bulshadu maadaama uusan ahayn mid waxyi ama dabiici ah waa wax yani halis leh oo aad iyo aad u halis badan at the same time wanaag badan la leh. waxaan ka wadaa wax bini aadanku sameeyo aadamuhu wuxuu sameeyo had iyo jeer waa wax dhiman oo dhaliishiisa leh maadaama uusan waxyi ahayn uu dhiman yahay waxa uu leeyahay wax qayb dhan wanaagsanna waa leeyahay dhan xunna waa leeyahay. waana sida adduunku ilaa maanta uu kusoo jiray oo ah waxa wanaaga ee maanta adduunka jira maadaama uu bini aadan sameeyey waa mid la mahadinayo. dhibaatooyinka faraha badan ee adduunka qaarkood yani noloshu ay dadka ku adkaatay hadday colaad tahay, hadday jaahilnimo tahay, hadday dulum kale tahay, hadday dhibaatooyin fara badan oo bini aadanku sabab u ah ay tahayna qayb bay ka tahay arrinta taniyada ee ah waxa bini aadanku sameeyo dhan wanaagsanna waa leeyahay dhan xunna waa leeyahay. haddaba su-aasha aan isweydiin ama isweydiinta mudan ayaa ah maxaa xaqiiqo ah ma aha waxaan isweydiinayno. sideen u garanaa xaqiiqada maaha waxaan isweydiinayno waa sideen u aqbalaa yani realityga. su-aashu maaha sideen maxaa reality ah ama sideen u garanaa reality waa sideen u aqbalaa reality, xaqiiqada sideen u aqbalaa. taas ayaa muhiima runtii bini aadan markaa tahay inaad xaqiiqada yani aad garato, aad ogolaato, aad qirto inay waxaan ay reality tahay ku hortaagan. hadda bakeeri baan biyo ku cabaya, haddii aan aqbali waayo bakeeriga aan biyaha ku cabaya inuu reality waaqic inuu yahay waxay noqonaysaa waxaan ku noolahay qof soo jeedo oo riyoonaya ayaad noqonaysaa. haddaba waxaan u dhigayaa 3 tilmaamood baan ku tilmaamaya arrinta iyada. kow waa habka bini aadanku dhaqankiisa uu banaanka u keeno si uu sii gudbin karo oo waxaa la yidhaahaa social spaceka wixii la keeno ayaa iyo bini aadanku yani qaabkaasa dhaqanka loo gudbiyaa. qofku wuxuu haysashada uu haysta haddaanu banaanka keenin oo social spaceka keenin wax gudbi kara ma laha. saas ayaa haddaba dhaqanka loo gudbiya. taasi waa kow. 2 physical environment oo la yidhaaho loo yaqaano nature. wixii dabiici ah ee natureka ah waa waxa annaga la-aantaya jiraya horeyna u jiray la-aantaya haddaan adduunka dhammaanana jiraya. waxaa ka mida buuraha ka mida, webiyadaha ka mida, cirkiya dhulkaa ka mida. waxaas natureka ku salaysanee ilaahay waxii ilaahay ku yimid xagga rabbi ka yimid waxaa la yidhahaa nature. adiga bini aadan markaa tahay ama noolo markaa tahay waxaad natureka aad ka qaadataa oo personaali si toos aad uga qaadataa. matalan inaad wax cunto baahi ay ku qabato maaha waxaad baratay maahina waa wax nature ah. qaabkaad wax cunaysa ee akhlaaqda wanaagsana ayaad adigu wax ka bedeli kartaa iyo waxaad cunaysa noocu ekaanaya adigaa choice-ka leh. laakiin inay baahi ku qabato waa nature, inaad hurdooto hurda ku qabato waa nature, inaad galmo samayn kartona waa nature. waxyaabaha caynkaasa waxaad ka qaban karta oo wax ka bedeli karta maahina waa dabiic wax natureka ku baro aqoon natureku ay ku siisay wey. sidaasaa haddaba natureku muhiimad gaara uu inoogu leeyahay bini aadan markaana. 3 social environment oo la yidhaaho dhaqan. social environment waxa weeye waa deegaanka bulshadu ay qaabka deegaanka bulshadu ay ugu nooshahay ayaa social environment. kaasina wuxuu dhalaa culture buu dhalaa. culturekaasi haddaba wuxuu u kala baxaa 2 qaybood buu u kala baxaa. material culture iyo non material culture. material cultureku waxa weeye wax kasta oo la taaban karo oo ku hor yaalla ama meel aad ku ogtahay ama aanad ogeyn oo la taaban karo objecti ah.
si toosa iyo si dadbanba loo taaban karo, waxaas kaasaa la yidhaahaa material culture. qaybta labaadi waxay tahay non material culture, wax alla wixii maanka la xidhiidha waxaad aaminsan tahay waa culture, waxa weeye waxa weeye waa non material culture. muusiga aad dhegaysanaysa waa non material culture. wax walba oo aan la taaban karin oo maanka ka yimaada ama aad aaminsan tahay oo fikir ah waa non material culture. waxaa kamida moraalka kamida, qiyamka kamida, valeerka kamida, normiga kamida, waxyaabaha caynkaas maanka ka imanaya, aaminaada maanka ku imanaya ayaa la yidhaahaa non material culture. haddaba si aynu u fahanno personal reality iyo personal identity, waxaan rabaa inaan laba siyaabood u kala dhigo si aan u fahanno, oo ah social reality oo bulshaweyntii waaqicii bulshaweyntu ay ku noolayd iyo personalkii shaksiga ah ee bulshada ka mid ahaa. laakiin hadda waxaan ka hadlayno kolkuu gooni u baxo gaar isku taago, ileen shaksiyaad isku yimid baa bulsho noqonaya. ayaan rabaa inaan barbardhig isku sameeyo sida ay wax u wadaagaan iyo halka ay lamaanaha ka yihiin. waxaa la yidhaahaa social reality waa objectively wax la taaban kara wey. personal realityna waa subjective. waxay subjective u tahay kan personal realitygu waxa weeye shaksigu waxa uu ka dhaqaaqayo had iyo jeer uu ku tiirsan yahay waa maankiis. maadaama maanka uu ku tiirsan yahayna wax alla wixii kasoo fila waa subjective, waa fikir, waa aragti wey. si haddaba aragtida aan u ballaarino ayaan rabaa inaan soo qaato aragtida Charlie Clooney oo sociolog Maraykana oo 1902 aragtidan hadda aan rabo inaan ka dhawaajo kusoo kordhiyay culumta bulshada ama sociology oo la yidhaaho looking the glass self. waxay ka dhigan tahay inaad muraayada isku